xoolaha ka cabayo oo xamud turwa Cabdalla Xamud beeshaas waxa weeyaan runtii aan wax badanna aan gaadhin dagaaladii markii dambana magaalada Ceerigaabo waxa weeyaan Allahu barakaatu meel kasta adduunka joogtaan waan salaamaya waxaan doonayaa muuqaalkaygan kooban inaan ku soo qaato laba qodob qodobka koowaad ninka madaxweynaha baran sheegtay iyo ninka madaxweynaha Laascaanood sheegtay ee maanta ku kulmay magaalada Laascaanood bal waxay ka wada hadleen iyo waxay wadaan arrinka labaadan ka hadlaya waxa uu yahay arrin khatar ah oo ku arkay nin askari ah oo ciidamada madaniga ah ee beesha habar jeclo oo buqdharkeyn jooga oo aan u arkay arrinkaas inuu khatar yahay dabcan aniga shakhsi ahaantayda oo laba eri ka oran doono waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka la garayso share garayso subscribe-tana saarto waa yahay sawirkaasi waa firdhiye iyo nin la yidhaha cali axmed oo waa nin dhulbahantaa iyo nin warsagelya waa firdhiye mid cali axmed ay ku magacaabaan waxay kulan ku wada qaateen magaalada dabcan Laascaanood waxay ka wada hadleen waxay noo sheegaya macallin kala foto balina daawada waana og yihiin in jeelkaasi uu loo diyaarinayo jeelkaasi waxa weeye maxaabiista Ceerigaabo loogu talagalay maxaabiista Ceerigaabo ayaa loogu talagalay jeelkaas insha Allah bismillaahi kariim waliba beesha la yiraahdo Cabdalla Xamud turwa Cabdalla Xamud beeshaas waxa weeyaan runtii aan wax badanna aan gaadhin dagaaladii markii dambana magaalada Ceerigaabo waxa weeyaan dhaqan xumo ka sameysay oo waxyaalo badan oo binaadamada ka baxsan ka sameeyay in aadawteen ayaa rajaynaya waxay ka shirayaan Cabdalla Xamud garweyn bay ka shirayaan garweyn sida ay magaaladooda magaaladooda Ceerigaabo ay ugu qabsan lahaayeen bay dabcan ka shirayaan waxay ka shirayaan waxa weeye sida ay dagaal ugu soo qaadi lahaayeen dabcan magaalada Sheekh Saxaaq ee Ceerigaabo laba muuse ay saddex muuse degan yihiin magaaladaasay waxa weeye u shirayaan waana intaa uu inoo sheegay macallin kala foto Cabdalla Xamud bay ka shirayaan ba arrinkaas laba eri ka odhanaya horta reerka ay u shirayaan waa Garxajis waa niman habar yoonisa waa Ismaaciil Carre waa Muuse Ismaaciil weeye waa jifo ka sii mado garweyn weeye 92 ilaa iyo dabcan 88 nimanka harti la yiraahdo iyagoo dawladda Soomaaliya kaashanay dagaal ku hayeen iyaga niman habar jeclo halka degan oo dabcan de Muuse Abukar iyo dabcan aduu saddexda Muuse halka degan laakiin dadkay aad iyo aad ku xasuuqeen Muuse Ismaaciil ka gaar uga mid ahaa waxa jirtay waqtigii SNM wadanka soo gashay mooyina ogtiina SNM tan aad iyo aad bi Muuse Ismaaciil ugu badnaayeen waliba nimankii garweynta la yiraahdo aad iyo aad ugu badnaayeen markii sida SNM soo gashay dhulbahanta uu qaxay waxa lagu soo celiyay magaalada Laascaanood dhulbahante si toos ah wuxuu ugu soo noqday 7 iyo dabcan 9kii warsangeli baaba ka soo horeeyay gahayle iminku soo noqnoqdaa imika weerigii gahayle berigii meesha deganaa jiray waa qaxay dib uma soo noqon nimanka warsangeli meesha u sokaysay xabad ka ridi jireen hadaafti ma ahayd waxa halka gaarsiiyay waxay ahaayeen niman Muuse Ismaaciil xaqiiqda marka laga hadlo ee la isxaqirin ee beenta laga fogaado waqti waxa jirtay magaalada Ceerigaabo Muuse Ismaaciil mooyee wala Muuse Ismaaciil ma garweyn mooyee aana cid kale dhex mari jirin waliba taariikhda dabcan waana ka sii sheekeyn kareyne oo dabcan halkan aan ku haboonayn markii xataa isaaq dib isugu noqday magaalada la yiraahdo Ceerigaabo
shimbira muuse ismaaciil shimbiraha uu helin jiray. marka garxajis maanta haysta madaxtooyadii oo dabcan internet iyo waxa weeye taliyayaal iyo ciidan iyo saraakiil iyo isku xidhnaan helay. wallaahi billaahi tollaahi aniga hal mar baan dhaartay waxa ay markuu cabdiraxmaan cirre soo baxayo madaxweynaha aanu noqon waxaan yidhi wallaahi billaahi tollaahi cabdiraxmaan cirre madaxweyne noqonaya baan yidhi. waxaan ku kalsoonaa waxay ahayd cududda garxajis bay ahayd ma aysan ahayn wax kale. iyo sidoo kale isaaq sidoo cabdiraxmaan cirre u taageersanaa in arkayay weliba intaan shirka habar jecla soo bixin bay ahayd. tixraaci waa qoran yahay. wallaahi billaahi tollaahi waa anigaa dhaartay inkastoo ay hogaamiyo xunxun beesha garxajis ay jiraan oo dad aad u yara liitaa ay reerka yaraho ay horkacayaan. wallaahi billaahi tollaahi meesha u sokaysa ee xabaddaasi imanaysa waa laasacaanood iyo meesha la idhaa dhahar xataa baran waa la dhaafayaa. wallaahi oo billaahi oo tollaahi baan ku idhi ma aha wax ciyaara. wallaahi billaahi qof dhiig galay baa ku dhaartaa. wallaahi billaahi tollaahi haddii isaaq kale xataa aansan iman oo garxajis kale uusan iman muuse ismaaciil baa waan ku kalsoonay. muuse ismaaciil kalsoonidaa ku qabo. wallaahi oo billaahi oo tollaahi waxaan ku dhaaran karaa inaanay daarood oo dhan hadduu isa soo raaco iska daa 4 dhulbahantahaye badda casbadda madow iyo iska daa warsangeli iyo iska daa majeerteen iyo waxaa iska dhaaf. haddii biyaha daarood hadduu isku yimaado wallaahi oo billaahi oo tollaahi inaanu muuse ismaaciil ceerigaabo ka saarahayn. oo wallaahi oo billaahi oo tollaahi 10 jeer waanigaa ku celiyey. bal car haddii maanta awood leedihiin bal magaalada ceerigaabo ogolaansho waxaan ahaynba kusoo gala. bal ogolaansho waxaan ahayn daarooda kusoo gala. ama dhulbahanto sheego ama warsangeli sheego ama mj sheego ama wax kale sheego. wallaahi oo billaahi oo tollaahi magaalada ceerigaabo hal shay baa kusoo geli kartaa. waa wax la yidhaahdo ii sheegeen ogolaansho. waar dhegayso 94 isagoo dagaalku ka socda dhulkan ayaan ceerigaabo muuse ismaaciil loogu geli jirin. ma maanta oo garxajis 100% midaysan yahay madaxtooyadii haysto dalkii haysto ayaa waxaad iga dhaadhicinaysaa dhulbahanta iyo warsangeli iyo majeerteen ayaa intay soo yaacaan ceerigaabo qabsan kara. waxaasi waxa weeye waa madhalays. waxaasi waa waxyaabaha madhalayska ah ee waa impossible. nebi maxamed baa dib u soo dhalanaya miyaad aaminaysaa maanta haddii lagu dhahdo garxajis ayaa ceerigaabo laga qabsanayaa isagoo xukunka haysta oo daarood ka qabsanaya. wallaahi oo billaahi oo tollaahi nebi maxamed oo dib usoo dhasha ayaa wallaahi ka dhow. oo wallaahi oo billaahi oo tollaahi waxa weeye dee dad kale taariikhay kala leeyihin. waxa weeye waxa simay dadka miidiyaha simay yaa waxa weeye waxyaabahan la akhriyo diyadee dabcan islaamnimada iyo soomaalinimada iyo waxyaabahaasa simayo dadka. xaqiiqda haddii laga hadlayo xaqiiqda islaamnimada iyo soomaalinimada sintay laakiin taariikhdu ma sinna. intaa u dhaafi maayo nimankaa maanta ninkaa warsangeli iyo ninkaa dabcan jaamac siyaada ku shiray laascaanood intaa u dhaafi maayo. laakiin daarood aniga waxa weeye halkoodu sharaf ku leeyahay. daarood dhulkiisu dabcan horena uma aaminsanin maantana ma aaminsanin in dhul ay leeyihiin laga qaado in dhiigooda la daadiyo horena uma aaminsanin. laakiin waxa ay wadaan iyo shirnacaseedka ay wadaan bal waxa ka soo baxa waan eegaynaa ee kala foto uu turjumayo waa eegaynaa. bal car haddaad daraawiish tihiin dhulbaantow ilaa waa idinka idhaahdo daraawiish baanu nahay waxaanu nahay maxay ui daraawiish baanu nahay annaga gaalkun baan la dagaalanaa. bal haddii waxa wallaahi oo bilaahi oo tallaahi ah haddaad 2 saacadood haysataan magaalada ceerigaabo miidiya dambe laygu arki maayo. miidiya dambe waa iskaga baxaya. haddii daarooda bal haddii maanta aa dhulbahantow daraawiish tihiin oo waxa weeye diinta u halgami jirteen
oo aanay daraawiish ahayn wixii habaryooni ku samaysay magaalada geedkii Oodweyne ee markii Sayd Cabdalla Xasan ilaahay ha u naxariistay uu dilay Nuur Axmed Amaan ayna wax geela qaada aanay isku bedelin oo markii dambana afar inoo yaryaro habaryooni soo inay gari u horeeyaan soo afjarin bal haddii aad daraawiish tihiin guryihiina laas ceerigaabo kale bal haddaad daraawiish tihiin oo gaal la dagaalanteen guryihiina ceerigaabo kale oo bal xataa cid kale idinla dagaalamayse gacan garxajis baa idin qabanayse bal kale war dowladii Siyaad Barre dabcan dabcan waxa weeye dadkani uu hor kacayay la islaha ummadda Soomaaliyeed shanta Soomaaliyeed hay isku keento abwaaniinta garxajis lahaayeen gaargaarin maysa askari giigsan baa wadi markii ay isku xaartay markii dambana aan nidhi saadada cadhootay Ibraahim laga sarreysiyay waa sabanadii bucur bacay sabanka muuqda wixii aan ku nidhi dadkii soo afjaray cid kale ma aha waa reer Sheekh Saxaaq waliba ay garwadeen ka yihiin dadka Muuse Ismaaciil kale leedahay wax ceerigaabanu ka qabsanayna ninkii burcaydan ku galay ninkii diyaaradda afduubtay ninkii waxa weeye idinku jabiyay jeelkii Birjeex ninkii jeelkii Madheere idinku jabiyay ninkii cadaad la idinku galay kii meel kasta idinku galay kii Hargeysa idinku galay waa dadka nadeero hartiyow haddii aad dagaal doonaysaan wax Maraykan ka soo urursada almiskaad wixii caawimo ku heshaan soo qaata khibrad wixii ku heshaan soo qaata layl kasta soo gaxaysta dhashiisha soo gaxaysta ma jeerteen oo dhan oo soo raaca nimankii biciidyahanka loo oran jiray difaaci jirayna soo macawliyahan bahamse biciidyahan horta biciidyahan nimankii berigii waxa weeye doollo aad doonateena waxa weeye soo gaxaysta ma jeerteen nimankii warsangeliga soo wada gaxaysta dhulbahanta waxa batridi karaya soo gaxaysta ugaadeen wixii aan soo heshaan soo gaxaysta ma reexaan u yeedha ceerigaabo kale ceerigaabo qabsada ceerigaabo kale oo qabsada waxa weeye waxaan ka baqanayaa maanta maalin kasta halka waxaan ka tabiyaa war Muuse Ismaaciil iyo Biciidow Muuse Ismaaciil iyo Muuse Abukrow walaalayaal guryaha dhulbahanta u ilaaliya qufulada ugu xidha u ilaaliya yaan laga jabsanin xoolahoodu waa xaaraan dad masaakiina ayaa halka ka soo tibinaya wallahi waxaan ka baqanayaa inaan soo tabiyo hablaha dhulbahantaha laga fogaado hablaha warsangelaha laga fogaado hablaha ma jeerteen laga fogaado waa dad islaama waa dad Soomaali ah wallahi billahi tallahi waxaan ku kalsoonahay xataa cududda Isaaq iska daa wallahi oo billahi oo tallahi dhayl looma dhaartee wallahi oo billahi cududda habaryoonis iyo ciida garan ku kalsoonay haddii Isaaq kalaba laga tago Isaaq magaca reer Sheekh Saxaaq haddii laga tago wallahi cududda habaryoonis iyo ciida gale ayaa wallahi ku kalsoonay marka bal wixiina isu soo ama dabagaalayaal Muqdisho laascaanood ku shiray noqda annaga waxa weeye labada nin shiray laba dabagaalo meel ku shiray noogama duwana marka walaalayaal soo dhaqsada muuqaalka waa ila fogaaday intaas iska joojinaya bal waxaad ila daawataa ninka habar jeclo bal ila daawada badda aad sidaysaan iyo xinjirta aad wadaan iska daaya marka waxa weeye annaguna waan ku nabad qabnaa alxamdulillaah rabbil caalamiin waa isku joognaa aad iyo aad baan iskaga wacanahay waa iska xilli Ramadaan oo xilli cibaado oo waa la iska cibaadaysanayaa baraagina waa kuwaasoo xoolaha ka cabayo oo ku halkaadii ka muuqda magaaladana insha Allah ta'ala de waa magaalo la dumiyay oo cadow ku soo duulay oo cadow helay sideeda loo dhisi doonaa magaalada waa la dhisi doonaa waa Ismaanow marka ilaahay ka dhigayo dadkii deegaanka noo way iman doonaan magaalada deganaa iyo maatadii iyo waa la soo rarayaa magaaladana sideedii waa loo degayaa dadku waa imanayaa ciidanka naftood hurayaasha ahina way difaacayaan in aad daawatay ma rajaynaya war waxaan leeyahay ninkaasi horta waa nin habar jeclaa waa nin ciidanka SSP kamid ah waxa uu joogaa Boqdharkayn haddaba arrinka la yaab kale dhacay wuxuu yahay
إن كان لياب كلا دعي وحوي هي وكلمة دورنا يلاقى واسكحل الرمضان وحل عباده ولا اسك عبادة السنة إياه براجينا وقواسو حولها كعب يو وقوال هذه كم مغلى إن أداوته مرتينية مجالة بقدركين مرنا البهانتا تشوجا مرنا عبرت على تشوجته بور تيرو إذا كل قوار يوم ماشي يتشوجان براجها إن دوحة ويا لقمة كالصونا كروي الصونين كراني مكاني سيدات براجها أي البهانتا شلي تشوجي أدوجا أبي كرتا أرينا أدوجا ورامين كرتا مياني سنينين أرينك الله يابي واكا dadkeena waxaad moodaa digtoonidii inay ka dhimatay ee wacyigelinta ka dhimatay warbaraagta dhulbahanta haystay shalay soo ma sunaynayo biyaha ilaa ninkani uu kula dagaalamayaa soo biyaha kuma sunaynaya ninkani sideed ugu aamini kartaa inaad ari iyo xoolo ka waraabiso adiguna aad ka cabto baraagaha buqdharkayn yaan laga cabin waxay dooraan bay ku samayn karaan waxay dooraan bay ku samayn karaan arrinkaana waxa weeye waa inta qodobkan inta soo qaatay insha Allah waxa ka codsanaya muuqaalka la garayso share garayso subscribe tana saarto ilaahay acmaasha dadka wanaagsan ka aqbalo ilaahay dadka sooman waxa weeye acmaasha ka aqbalo ilaahay waxa weeye dhiiga islaamka kala joojiyo ilaahay dadka Soomaaliyeed ee walaalaha ee waxa weeye qabiilka isku leeynaya ilaahay waxa weeye ha kala qaboojiyo ilaahay waxa weeye nimanka hartiga ah dhulkeena inagu haysta ilaahay dhiiqarmoonkooda inaga duwo ee waxa weeye kulba magaalooyinkeena u shiraya ee waxa weeye inay dal inala yeeshaan intii diideen haddana doonayeen dhulkeena inagu qabsaan ilaahay dhiiqarmoonkooda inaga duwo aad iyo aad baa mahadsantiin muuqaalkeen intaas iska joojinaya waxaan ka codsanayaa like garayso share garayso subscribe tana saarto